halkani waa BBC oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. waa galabnimo khamiisa 19 abriil sanadka 2018 saacadda geeska Afrikada barina waa 5tii galabnimo. qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro oo sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo uu qiyaano qaran galay. madaxweyne Siilaanyo shacbigiisa khiyaameeyay oo ka qariyay madaxweyne Muuse wuxuu wareejintii ku wareejiyay isagoo in heshiiska ay saxeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalku. boqoradda Britain Elizabeth oo maanta si rasmi ah London uga furtay shirweynaha dalalka barwaaqa sooranka iyo dadkeena guuxooda la maqlay oo la dhageystay laakiin waxaan leenahay wali hawsha fara kama qodna. waxaan ka rajaynayaa community-ga in ay taageeraan askartooda maadaama askarta ayaanta lagu kacsan yahay oo dhibaato yarar iska jiraan. waa sargaal ka tirsan booliska Mareykanka oo la dalacsiiyay oo Soomaaliya. waxaa kaloonu eegi doonaa wasiirada Soomaalida ee ku jira golaha cusub ee wasiirada ee dalkaasi Itoobiya oo maanta uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya. cabsi dhanka amniga ah oo ka taagan gobolka waqooyi bari ee Kenya oo halis ku noqotay waxbarashada gobolkaasi. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq anigoo aadan Saalamiinana aan soo jeedinayo dunida iyo maanta. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Cabdiraxmaan Xaaji Caddow stuudiyaha magaalada Nairobi. mahadsanid Saalimin. dalka Kuuba ayaa la sheegay inuu yeeshay madaxweyne cusub oo soo afjaray xukunkii ay 60 sano soo hayeen qoyska Castro. madaxweynaha cusub uu yeeshay dalka Kuuba oo la yiraahdo Miguel Díaz-Canel wuxuu xilka madaxweynenimada uu si rasmi ah u kala wareegay Raúl Castro oo ah Fidel Castro walaalkii. waana madaxweynihii ugu horreeyay muddo 60 sano ah magaciisu uu ku jirin Castro. Mr. Miguel oo dhashay kacaankii dalka Kuuba ee 1959 kadib waxaa siyaasadda ku soo daray ninka loo yaqaano aabaha kacaanka Kuuba waa Fidel Castro-gii hore. telefishinka dowladda Suuriya ayaa sheegtay boqolaal ka mid ah fallaagada ka dagaalamaysay bariga Dimashq iyo qoysaskooda ay bilaabeen inay halkaasi ka baxaan xilli ay ciidamada dowladdu isku hareereeyeen. wuxuu warku intaa ku darayaa in ay dadka ka bixi doono magaalada Al-Dumayr guud ahaan tiradoodu lagu qiyaaso 5,000. fallaagada Jaysh al-Islaam ayaa waxay dowladda kula heshiiyeen inay hubka dhigaan ayna u dhaqaaqaan deegaanada waqooyiga Suuriya ay fallaagada gacanta ku hayso. heshiiskanina wuxuu kii ugu horreeyay kii ugu adkaa oo xoogaga mucaaradka culays ku saarayo inay ku wareejiyaan dhulka ay gacanta ku hayaan maamulka madaxweyne Bashaar al-Asad. boqoradda Ingiriiska ayaa madaxda wadamada barwaaqa sooranka uga furmay magaalada London ka sheegtay inay rajaynayso wiilkeeda oo ah dhaxal sugaha in loo doorto waa Amir Welsiye hogaamiyaha ururka wadamada barwaaqa sooranka. boqoradda oo sabtida 29 jirsanaysa ay waxay bilowday inay qaar ka mid ah xilalka ay haysay ay ku wareejiso qaraabadeeda taasoo loo maleeyay inay noqon doonto shirka 13aad ee ururka barwaaqa sooranka haatan furmay inuu noqon doono kii ugu dambeeyay oo ay ka qayb gasho. madaxduna wuxuu xil uu ka saaran yahay inay si gooni ah uga wada hadlaan ciddii boqoradda bedeli lahayd iyadoo talooyin halka laga soo jeediyay inay tilmaamayaan in hogaaminta ururka wareegto laga dhigo. xukuumadda Zimbabwe ayaa bilowday ololo ay si degdeg ah ugu qoranayso kalkaaliyaal caafimaad kadib markii ay toddobaadkani bilowgiisa ay bilaabeen inay mudaharaadaan kalkaaliyaal caafimaad oo tiradoodu gaarayso 14,000 shaqadana laga eriyey. madaxweyne Emerson waa madaxweynaha dalkaasi Zimbabwe ayaa sheegay inay dowladdiisu ay shaqaalaysanayso kalkaaliyaal cusub kuwa howlgabka ahaana ay dib ugu yeedhanayso. kalkaaliyaasha shaqada laga eriyey waxay dib u soo codsan karaan ayuu yidhi in la shaqaaleeyo. kalkaaliyaasha oo isniintii bilaabay mudaharaadyadooda waxay ka cabanayaan mushaaraadka ay horey u qaadan jireen iyo weliba gunooyinka iyadoo mushaarka cusub ay dowladda haatan u goysayna uu yahay mid aad u yar. dowladduna waxay sheegtay in loo qoondeeyey dhaqaalihii cabashadooda looga jawaabi lahaa halka ay kalkaaliyaashuna sheegeen inay ku qancayaan oo keliya lacagta oo akaawyadooda ku soo dhacda. dowladda Ciraaq ayaa sheegtay inay bilaabeen duqeyn culus oo dhinaca cirka ay ku beegsanayaan dableyda ururka isugu magacdaray dowladda Islaamiga ee ku sugan waqooyiga Suuriya.
afhayeen u hadlay ciidamada ciraaq ayaa sheegay in weerarka kooxda IS lagu qaaday ay iska kaashadayaan dowladda suuriya. ururka la magac baxay IS wuxuu isku dayey inuu dhul ballaadhan uu ka qabsado dalalka ciraaq iyo suuriya, balse waxay la kulmeen iska caabin xoog leh oo dhinacyo badan uga yimid. ururka meesha keliya uu gacanta ku hayo ayaa waxay noqotay deegaan aad u kooban oo ku yaallo meel ku dhow xadka ciraaq oo ah meesha ay hadda duqaynta ka socoto. ugu dambayn, kooxda xuquuqda rayidka ururka adhahdee xuquuqda dadka rayidka u dooda ee koonfur afrika ayaa sheegay inay si iskood ah dabagal ugu samayn doonaan dacwadda lagu soo oogay siyaasiga mucaaradka Julius Malema ee la xidhiidha musuqa iyo wax isdabamarinta. Julius oo lagu soo eedeeyey tartan wado looga dhisay gobolka Limpopo ee dalkaasi koonfur afrika inuu si musuq ah uga faa'iideeyey urur u dagaalamo xuquuqda dhaqaalaha. Mr Malema ayaa diiday dacwaddaasi lagu soo oogay ururka xuquuqda rayidka u dooda ee loo yaqaano AfriForum in uu shaqadiisa tahay inuu difaaco xuquuqda dadka Afrikaanka ah oo ay ka mid yihiin beeraleyda dadka caddaanka ee dalka ku nool. qaar ka mid ah dadka koonfur afrika oo ra'yigooda ka dhibtay ayaa waxay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu ururka waxa ay garab u siinayaan siyaasigan uu yahay nin u ololeynayo dhulka si cadaalad ah loo qaybiyo iyadoo aan wax magdhow ah laga bixinin. warkii dunida waa naga intaa. waxaan dib kugu celinayaa stuudiyeenna magaalada London iyo Saalimiin. mahadsanid cabdiraxmaan cadow. halkaad naga dhegaysanaysaan waa London. waa hagaag aanu ku bilowno magaalada muqdisho oo weli la dareemayo sida ay u cakiran yahay xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo wararku ay sheegayaan dekedda magaalada muqdisho uu ku soo xirtay markab lagu rarayo qalab iyo alaabooyin kale oo horay u yilay xerada ciidamada Imaaraadku ay ku tababaraan ciidamada Soomaaliya ee magaalada muqdisho. waxa ay ka dambaysaa arrintani markii dowladda Imaaraadku ay joojisay heshiis tababarada xagga ciidamada ah oo wax laga saaraya khilaafka labada dowladeed ee ka dhashay sida la isugu afgaran waayey heshiiskii dekedda Berbera. mar dhow shir jaraa'id oo maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ayaan idinka warrami doonaa oo aanu ku horayno, bal marka hore wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad oo nooga warramaya markabkaasi la sheegay inuu ku soo xirtay dekedda magaalada Muqdisho. Cali Nuur. hoofigu waxa weeye in khiyaamo qaran ka dhacday halkaas ama uu ku xiran yahay dekedda weyn ee Muqdisho. waxaa markabkan lagu rarayaa oo ilaa iyo iminka socota qalab tira badan oo intiisa badan uu yahay kii ciidamada, gaar ahaan xerada ay ciidamada Imaaraadku ku tababaraan magaalada Muqdisho. waxaa qalabkaas intiisa badan markabka uu ku socdaa, waxaana la filayaa inta ilaa berito inuu soo gabagaboobo, kadibna markabkaasi uu u shareecdo ama uu dib ugu laabto halkii uu ka yimid oo ahayd Imaaraadka. alaabooyinkaasi la sheegayo ee markabkaasi inuu qaadayo aadka u badan maxaa ka mid a? gaadiidka gaashaaman oo ay isticmaalaysay ama ay isticmaalayeen tababarayaal Imaaraadka u dhashay oo tababarayay qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo xarun weyn oo halkan ay ku lahaayeen ay ku tababarayeen ayaa ugu badan qalabka. intiisa badan qalabka sida wararka aynu ku helayno waa qalab ciidan oo tababarayaalku ay isticmaalayeen. sidaan ka warqabno marka ay u kala gooshayaan magaalada Muqdisho dhinacyadeeda, meel ammaanka aad looga baqo ayay tahay Muqdisho. sidaa darteed waxa ay isticmaalaan ama ay adeegsadaan gaadiidka qafilan ee waaweyn, qaarkood hubka uu ku xiran yahay. gaadiidkaas ayaana u badan waxyaabaha iminka la rarayo. Cali Nuur, waxaad kaloo iga warantaa cisbitaal ee daryeel caafimaad ay ka heli jireen dad badan oo Muqdisho ku nool oo Imaaraadku dhowr sano u waday oo la xiray, iyo xaalka cisbitaalkaasi. Saalamin, sidaad u sheegtayba xiriirkan sii xumaanaya Imaaraadka iyo Soomaaliya keliya saameyn kuma uusan yeelan dhanka ciidamada oo Imaaraadku ay Soomaaliya ka caawinayeen. saameyntiisu waxay usoo gudubtay dhanka bani aadamnimada iyo howlo kale oo horumarineed oo Imaaraadku ay ka wadeen Soomaaliya. isbitaalkan oo dad 100 kor u dhaafaya maalintii ka helayeen, isbitaal bukaan eegta ayuu ahaa oo isbitaalka shaqooyinka uu qabanayo waxa ugu waaweynaa in dad tabar yar oo xanuunsan inay yimaadaan, isla markaana la eego xaaladooda, kadibna ay dawooyin helaan.
100 qof ayay kor u dhaafayeen maalintii dadka uu adeega siinayay isbitaalkan. waxa uu ku xiran yahay ama la yidhaahdaa Sheekh Zayed oo ku yaala Abu Dhabi, isla markaana sameeya ama ciidamada imaaraadku ay leeyihiin. sababta ugu weyn wararka aynu helayna waxay sheegayaan in uu la xiriiro arrimaha ciidamada, isla markaana dhaqaalaha lagu bixinayay ama kharashka ku baxayay uu ka mid ahaa kharashka ciidamada tababarayaasha ah halkan loogu keenayay oo imaaraadku ay bixinayeen. maadaama taa ay istaagtayna isbitaalku sitaa la mid ah in uu la istaagay. warar aynu helayno oo safaaradda ku dhowdhow waxay sheegayaan in safaaraddu ay isku dayayso inay raadinayso il kale oo ay ku bedasho dhaqaalaha ay ku bixin lahayd isbitaalka, balse ilaa iyo iminka ma aanay suuro gelin. waxa uu xiran yahay qiyaastii maalintii 4aad ama 5aad. waxa dowladda Soomaaliya hadashay kamaanay hadlin, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, in ay hayso bedel rasmi ah oo lagu bedelayo waxa socdo. sidaan ka warqabno arrinka ciidamada, wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidamaduba waa ay hadleen, waxay sheegeen inay iyaga la wareegayaan, mushaaraadka iyaga bixinayaan, balse tan bani aadamnimada ma muuqato ilaa iyo hadda cid soo bedelaysa oo soo buuxinaysa. mahadsanid cali nuur ayuu ahaa wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho oo warbixintaasi isagu noo soo dirayey oo si toosana qadka ugu jiray. magaalada Hargeysa oo saaka shir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo uu khiyaano qaran galay kadib markii uu sida uu yiri uu ka qariyay shacabka Soomaaliland in uu u soo bandhigo in Soomaaliya ay saxiixday heshiiskii Berbera. Cirro waxa uu daba socday waraysi BBC do ay la yeelatay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta oo uu sheegay in dalkiisu aanu aqoonsanayn Soomaaliland iyo in heshiiska dekadda Berbera ay wax ka ogaayeen dowladihii hore ee Soomaaliya. haddaba shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Axmed Saciid Ciga waxa uu Cirro ka waraystay arrinkan iyo xisbigiisa oo isku khilaafsan xogayihii guud ee xisbigaasi wadani. mowqifkaygu waxa weeye in khiyaamo qaran ka dhacday halkaas. madaxweyne Siilaanyo shacbigiisa khiyaameeyey oo ka qariyey. madaxweyne Muusena xilwareyntiisii ku wareejiyey isagoo og in heshiiska ay saxeexeen dowladda imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalku. marka labadoodaba runtii waxay noogu muuqataa inay qarankan khiyaameeyeen, ay mutaysteenna in lagu qaado khiyaamo qaran, Siilaanyana maxkamad la keeno. Muusena waxaa soo jeediyey 2 arrimood midkooduna inay u bannaan tahay inuu iscasilo shacbigana uu weydiisto saamaxaad, doorashooyin cusub madaxtooyada ku dhawaaqo, iyo in maamuska xayuumi lagu sameeyo oo xilka laga qaado. cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha wakiilada ahayd markii heshiisyadan ay socdeen saldhigga Berbera iyo KDB waliba inkastoo ka saldhigaad ka baxday, laakiin KDB waxa lagu saxeexay oo lagu ansixiyay baarlamaanku aqlabiyadii weyn in Anwar Qarqaash wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta hadda dhageysto waxa uu yiri tafaahum baanu kala lahayn dowladii hore ee Soomaaliya ma oran wax baanu kala saxeexnay. Axmed marnaba heshiis lama keenin marka baarlamaanka ahaa iyo kadib toona heshiis lama keenin, waxa la heshiiska waa la soo wadaa. heshiiskii laamakana xukuumaddu baarlamaankan uma soo bandhigin, shacbigan uma soo bandhigin. isaguna wuxuu sheegay Qarqaash hadda hadalkiisa si fiican u dhuuxdo in ittifaaqiyada ay kala yeesheen dowladda Soomaaliland ma aqoonsanin buu yiri. marka Soomaaliland ma aqoonsanin uu yiri oo safaarad kuma lihiin qasuuleedna kuma lihiin taasina wax rasmi ah, laakiin tani ma u agtay adigoo markii hore la socday inaad ka faa'iideysanayso mucaaradkan. ma Axmedow markii horena hadaad eegto saxaafadda markasta waxa la heshiisyadii hal la keeno oo dadka loo soo bandhigo. heshiisyada kama aan soo horjeedin, horumarka ma aan soo horjeedin, markasta waxaan ku celinaynaa heshiisyadii hal la keeno wixii loo qarinayna maanta cadaadeen. marka idinku ma ogeyn oo ka qariyay aniguna ma ogi, anigu ra'iisul baarlamaanka ma ogi, heshiis rasmi ah oo ma keenin. hadda wixii la keenay markii gacanta loo taagayay aqlabiyada lagu ansixiyay maxay ahayd markii DB oo kale waxa la keenay waxay ahaayeen fotokobiyo, waxaana la yiri waa la soo wada heshiiskii, markaaba waa la diiday heshiiska dhuqulkii asliga ah la keeno. marka ma xog kala haysaa mise waraysigaasi Anwar Qarqaash bad ayaad ku go'aan qaadanaysaa? wixii xoog kalena waanu doonaynaa oo ku daba jira cid baan u xil saari doonaa, laakiin dawladdu matalaa warka rasmiga ahayna waa ka soo saaray wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka. gudoomiye dhawaan khilaafaad baa soo baxay xisbigaaga oo xogayii guud waad xilka wad ka qaadeen, xogayii guud cusubna waad magacawdeen, gudoomiye ku-xigeenka waad magacawday, taasina waxa la leeyahay sharciga ku siin maayo taa ka war.
axmedow sharciga waxaan aanu siinayn awood ma isticmaalin anigu guddi baan loo saaray arrintii xogayaha guud guddigaana soo jeediyey in xilka laga qaado waxaana la mareeyey sida xeerka ku qoran qodobka 30aad in guddiga fulintu annagu soo jeedin noon leenahay xilka wax ka qaadi kara guddiga fulinta laakiin waxa la leeyahay oo ku dooday xogayaha guud maxamed cabdilaahi uur cadde in shirweyne la idinku wada doortay shirweynahaas xilka laga qaadi karo axmedow xeerka waxaa ku qoran madaxda axsaabta in laga qaadi karo xilka iyadoo loo raacayo dariiq sharci ah kaasoo in la soo jeediyo dabeetana ay guddiga fulintu ka qaato cabdiraxmaan waxaa jirta in xisbiyada Soomaaliya markay heerkan soo gaadhaan oo kale uu burbur ku dambeeyaan oo udub baad ogeyd kulmiyada soo isqabsadeen inta ka badbaaday u cid baad ogeyd xisbiyo kale aad ogeyd in maslaada wadadii baad haysaan khilaafkan hadda ay tantu soo ku socdo isma lihin khilaafka uu dhacaa laakiin khilaafka xisbiga burburayo ma hakan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo waramayay wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Axmed Saciid Cige isla qodobkaasina dhegeystayaasha Facebook ku soo dhiibtay aragtidooda waxaa ka mid ah Cabdirashiid Maxamed Cumar oo jooga magaalada Boorame waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa hadalka gudoomiyaha xisbiga wadani ee ah in madaxweynihii hore ee Soomaaliland maxkamad la soo taaga Muuse Biixin Iscaasilo waayo buu yiri madaxda Soomaaliland waxay shacabkooda u sheegeen inay heshiiska kala saxiixdeen dowladda Imaaraadka hase yeeshee aragtidaas ka duwan waxaa qaba dhegeysta kale Faarax Bashiir oo isagu ka soo qoray magaalada Gaalkacyo waxa uu leeyahay eedeymaha uu gudoomiyaha xisbiga wadani kala dul dhacay madaxweynihii hore ee Soomaaliland runtii waa mid aan hadda waxba soo kordhinaynin dhaliishuna waxa ay fiicneyd in la tuso xilligii uu xilka hayay waxaanu arkaa buu yiri in gudoomiye Cirre uu baryahan dambe eedeymo uun maciinsaday halkaad naga dhegeysanaysaan waa London kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waaga goordho waxay noo soo socdo warar ay ka mid yihiin boqorada wadanka Ingiriiska waa UK andhehe oo furtay shirweynaha ururka barwaaqa sooranka oo ka furmay magaalada London balse haatan Ethiopia baarlamaanka Ethiopia ayaa maanta waxay ansixiyeen golaha wasiirada ee dalkaasi oo soo hordhigay ra'iisul wasaaraha cusub Abiy Ahmed waxa kale oo la ansixiyay afhayeenka baarlamaanka Abiy Ahmed markii uu xilka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu isbedel la sameyn doono si loo soo afjaro shaqooyinkii sababay inuu iscaasilo ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay haddaba Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo arrimahaas la socday ayaa waxa uu uga warramay tallaabooyinkaas siyaasadeed iyo siideynta nin Soomaali ah oo muddo 10 sano ka badan xirnaa wariyaha BBC-da Faarax Lamaane Faarax markii sidii iyo barkahayd ayaa golaha sharci dejinta ee waddanka Itoobiya oo fadhiistay taas oo loo ballansanaa waxaa la ansixinayay 3 arrimood golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy Ahmed uu soo dhisay waa la ansixiyay intuu keenay inkastoo la xiray 7 wasaarada wasiiradooda kaliya uu keenay inta kalena la sheegay in dib laga diri doono arrintan ay sii socon doonto waxaa kaloo la meel mariyay in la isku daro wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xoolaha taas oo sabab looga dhigay nafsani ka faa'iidaysiga maaliyadeed maadaama labada wasaaradood isku dalacan yihiin kale waxaa la ansixiyey afhayeenkii baarlamaanka waddanka Itoobiya ayaa la ansixiyey waana markii ugu horeysay gabadh afhayeenada noqotay waddanka Itoobiya golaha sharci dejinta gabadhani markii hore waxay ahaan jirtay arrimaha haweenka ee dowladda federaalka waxayna kasoo jeedaa deegaanka shucuubta koonfureed ee ra'iisul wasaarihii hore uu kasoo jeeday ayay kasoo jeedaa waxaa iga warantaa 16 wasaaradood ee la ansixiyey ee qowmiyadaha sida loogu kala qaybiyey marka laga yimaado Soomaalida wasaaradaha ay qabteen maxaa ka mid ah wasaaradda warfaafinta ama wasaaradda xiriirka dadweynaha meesha Itoobiya laga yiraahdo wasaaraddaas ayay Soomaalida qabatay Axmed Sidane wasiirkaas oo markii horeba wasiirka gaadiidka
yaa loo dhiibay. marka wasaaraddaasi waa wasaarad weligeed maynan qof aan gaarista kamid ahayn muuna qabanin. waana wasaarad aada loogu xisaabtamo aada loo weyn. marka soomaalida waxaa moodaa in aada loo tixgeliyey. wasaarad kalaa jirta oo gabadh ubax jiro layidhaahdo loo dhiibay. waana wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda. wasaaradda kudheer waa wasaarad aada u weyn. marka laba wasaaradood oo waaweyn ayay maanta soomaalida ku fadhiyaan. arrin ayaan tan la hadal hayay oo la xiriirtay nin maxbuus ahaay oo 12 sannadood ku jira xabsiyada Ethiopia oo Soomaali ah oo la sii daayay. maxaa nooga sheegi kartaa? ninkaas Bashiir Axmed Mustafa Daahir waa la sii daayay maalintii Talaadada aan soo dhaafnay. barkinkeedii ayaa la sii daayay. Bashiir wuxuu ku xukunaa xabsi daa'im. waxaana laga sii daayay xabsi ugu weyn kaalintii. wariyaha BBC da Cabdinaasir Xikam oo isagu u waramayay Farax Lamaane. dowladda Zimbabwe ayaa waxa ay bilowday inay qorato ay shaqo siiso kalkaaliyaasha caafimaadka ee shaqo la'aanta iyadoo dib ugu yeertay kuwii horey howlgabka u noqday iyadoo isku dayeysa inay ku bedelato 10,000 oo shaqada laga eriyay toddobaadkan kadib markii ay ku mudaharaadeen oo ay cabasho ka muujiyeen mushaaraadka la siiyo. afhayeen u hadlay madaxweynaha waddankaasi Emerson Mnangagwa ayaa waxa uu sheegay in kalkaaliyaasha shaqada laga eriyay ay soo dalban karaan shaqada iyagoo shaqaale cusuba. waxaa ka waramaya warbixintan soo jeedinaya Ciise Xaaji. kadib markii dowladda ay shaqada ka tirtay in ka badan 13,000 oo kalkaaliyaal oo dibadbax sameynaya ayaa haatan dowladda Zimbabwe waxay sheegaysaa in kalkaaliyaashaasi shaqada ay dib u soo codsani karaan. kalkaaliyaasha howlgabka ah iyo kuwa aan shaqo haysanin oo haatan jaamacadaha ka soo baxay ayaa sidoo kale loogu baaqay inay shaqada soo codsadaan, balse mushkiladda hadda taagan uma eka mid dhammaatay. xogayaha guud ee ururka ay ku midoobeen kalkaaliyaasha Zimbabwe Enoch Dongo ayaa sheegay in shaqo keeriyada kalkaaliyaashu ay hareer marsan tahay xeerka shaqaalaha. waxa uuna sheegay in weli dibadbaxyadu ay socdaan. doorashada madaxtinimada dalkaasi bilooyin oo keliya ayaa ka harsan. qaar ka mid ah shacabka Zimbabwena waxay u arkaan xeeladan ay la soo baxday dowladda mid khatar ah oo ku diri karta codbixiyaal fara badan. sidii aad warkaba ku maqlayseen, boqoradda Britain Elizabeth ayaa maanta si rasmi ah London uga furtay shirweynaha dalalka barwaaqa sooranka ee lagu wada inuusan noqonaynin mid caadi ah, waayo boqoradda oo sabdiga 92 jir noqonaysa ayaa xilkeeda qaar waxa ay ku wareejinaysaa wiilkeeda Amir Charles. waxaana ay u eg tahay in shirka sare uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee ay guddoomiso oo fadhigaasi markaasi ay ka qayb gasho, kaasoo ay ka soo qayb galeen madaxda 53 dal oo xubno ka ah ururkaasi barwaaqa sooranka. munaasabadii furitaanka shirweynahaasi ayaa lagu bilaabay heesta caanka ah ee Allow Boqoradda Badbaadi. khudbaddii furitaanka shirka ay ka jeedisay boqoradda Elizabeth ayaa waxa ay kaga hadashay sida ay raalli uga tahay habka uu hana qaaday ururka, waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in wiilka carruurteeda u weyn Amir Charles uu la wareegi doono hogaaminta Commonwealth. It is my sincere wish that the Commonwealth will continue to offer stability and continuity for future generations, and will decide that one day the Prince of Wales should carry on the important work started by my father in 1949. intii aanu shirku furmin ayaa ra'iisul wasaaraha Britain May iyana waxa ay uga amaantay boqoradda dadaalkii ay u soo gashay ururka Commonwealth ee barwaaqa sooranka, waxaana ay ku tilmaantay boqoraddu sidii ay ugu soo adeegtay oo ay ugu soo dhabar adeegtay ururkaasi barwaaqa sooranka sidii uu u guuleysan lahaa. You have been the Commonwealth's most steadfast and fervent champion. waxaad u ahayd ururka barwaaqa sooranka qofka ugu daacadsan oo lagu kalsoonaan karo iyo horyaalka aaminaadda. waxaad ahayd runtii qof qiyam mug weyn ku leh ururka barwaaqa sooranka iyo cod u dooda dalalka yaryar in ay qiimo leeyihiin sida kuwa waaweyn oo kale, iyo in dalalka qaniga ah iyo kuwa jilicsan ay garbaha isqabsadaan. waxa aad soo aragtay qaar ka mid ah dhibaatooyinkeenna ugu waaweyn ee ugu halista badnaa. That the wealthiest and the most vulnerable stand shoulder to shoulder. You have seen us through some of our most serious challenges. mar sii horeysay ayaa Amir Charles waxa uu ka hadlay ahmiyadda barwaaqa sooranka iyo qiimaha uu isugu keenayo inuu mideeyo shucuubtooda.
I pray that this Commonwealth Heads of Government meeting will not only revitalise the bonds between our countries, but will also give the Commonwealth a renewed relevance. waxaan codsanayaa in kulanka madaxda dalalka barwaaqa sooranka ah in uusan keliya noqonin dib u soo kabashada iyo isku xirka ka dhexeeya dalalkeena balse uu sidoo kale soo cusboonaysiiyo xiriirka u dhexeeya dhammaan muwaadiniinteena in sidaasi la sameeyo dalalka barwaaqa sooranka waxay horumar u noqonayaan nolosha jiilalka mustaqbalka ee cusub sida kuwa badan oo annaga naga mid ah ay u ahayd munaasabadii furitaanka shirkan sare oo ay ka qayb galeen madaxda xukuumadaha 46 dal oo ka mida 53 dal ee xubnaha ka ururkaasi barwaaqa sooranka oo arrimaha ugu waaweyn looga hadlayo waxaa ka mid ahaa ammaanka ganacsiga maalgashiga iyo hagaajinta deegaanka waxaana aad loo xasuusan doonaa sidii ay ugu dadaali jirtay boqoradu dhiirigelinta sanado badan oo ay ugu soo jirtay sidii ururkaasi u noqon lahaa mid baraare iyo nabad u horseeda boqolaalka milyuun ee uu matalo ururkaasi halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa London. intii lagu guda jiray toddobaadkan dhammaaday ee ku dhammaanayay 17 Abriil ayaa roobab ba'ani ay ka da'een webiyada Jubba iyo Shabeelle inta ay maraan gaar ahaan dhulka Soomaalida. Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysana waxa ay ka digtay dhibaatooyinka ka dhalan kara fatahaado ka yimaada roobabkaasi iyo webiyada oo fataha. haddaba qatarta laga digayo ee daadadkaasi fatahaada webiyada ayaa waxaanu ka waraysanay Muuse Shaaciye oo ah qabiir ka tirsan laanta beeraha iyo cunnada ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan qaybta FAO. Shaaciye oo Nairobi jooga ayaa waxa uu uga warramay Cabdinuur meelaha roobabkaasi aadka ah ay ka da'een iyo qatarta laga baqayo. horta roobku sanadkan si fiican bay horta u bilowdeen meelaha qaarkood oo way soo hormareen oo waxay bilowdeen bisha March. waa roobab is haysta dhulka labada webi ay ku fadhiyaan iyo gobollada kale oo dhanba Jubba iyo Shabeelle oo ay sababtu tahay mar walba waxa laga baqaa fatahaad. Jubba iyo Shabeelle aagooda laga soo bilaabo dhulka sare ee buuraleyda Itoobiya ilaa aad ku timaado koonfurta Soomaaliya ilaa iyo dhulka Jubbada hoose aad ayaa roobkaas uga da'ayaan. roobku ilaa hadda meelo yaroo kooban marka la eego baaxadda uu biyuhu ay baxeen fatahaadu ay dhacday waa meelo yaroo kooban laakiin webigu labada webiba waxay u dhow yihiin meelana waa gaareen gowga webiga meeshii jambiga ugu sarraysa ee meeshii la qiyaasaya inuu wixii ka dambeeya uu bannaanka u baxayo ayay marayaan. haddii aan ka soo qaado webiga Jubba waxaad arkaysaa in uu 5 bar buu marayaa. 5 bar waxayd meesha la qiyaaso in hadduu 5 bar mitir markuu biyuhu ay joogoodu gaaro in webigu fatahayaa la qiyaasi jiray. hadda waxay biyuhu marayaan 6 meesha webiga Jubba halkii halistu ugu badnayd ba hadduu socdaanoo 6 iyo xoogaa bay marayaan. waa luuq oo gobolka Gadaawa meesha webigu uu ka soo galo u dhow Soomaaliya oo meeshaan cabirka ku haysanaa. qotodheerarka biyaha iyo jambiga isa soo gaaridoodu waa saalan tahay laakiin weli hadda muusan gaarin meel uu halis ku ridi karo marka laga reebo meeshaan luuq la yiraahdo dhulbeereedkiibuu galay weli tuulooyinkii dadka muusan kicin. haddii marka aad eegto xagga hoose oo baardheere iyo inta kale webigu aad buu ugu dhow yahay inuu soo baxo waa haddii roobku aysa soo taraan. marka khatarta iyo digniinta hadda aad soo saarteen xaggee bay ku jihaysan tahay? waxay ku jihaysan tahay masalan halkaasuu aan kaaga hadlayay waxay webiga Jubba. webiga Shabeelle wuxuu ka soo galaa meel la yiraahdo Deefow oo ka tirsan magaalada Beledweyne. marka Beledweyne markii la soo gaaro wuxuu bilaabay inuu biyuhu ay dhowr xaafadood oo magaalada Beledweyne ka tirsan dhinaca waqooyiga xiga in biyuhu ay soo baxaan oo beeraha ay galaan oo tuulooyin yar yar oo la kala yiraahdo Hilakeliyo, Shiniile iyo Leebow 3 tuulo hadda biyuhu ay saameeyeen. wax dhimashay dhaawaca iyo xoolo iyo wax burburay iyo xoolo iyo dhaawac iyo dhibaato ma dhicin. biyihii haddii ay soo socdeen oo ay soo gaareen webiga isla magaalada Jowhar markay soo gaareen biyihii webiga haddana qotodheerku uu ka gaaban yahay kan Beledweyne marka si sahal webigu ku soo baxaa. waxaa hadda dhacday marka dhowr tuulo ayaa biyihii ay ku baxeen. waxaa ka mida meelo la yiraahdo Maandheere, Bayaxow, xaafadaha magaalada ka tirsan oo dad ma garanaysaa barabaxay ay deganaayeen ayay ayaguna biyahaasuna saameeyeen iyo dhulbeereed. waa tahay marka haddii roobabku ay socdaan dadka marka maxaad uga digaysaan oo tala aad siin lahayd? dadka waxaan uga digaynaa marka weli xilligii waa dhiman yahay oo hadda waxaanu ku jirnaa waxa weeye
xoogaa yar baanu bartamihii abriil dhaafnay weli bishii abriil wax badan baa ka haray ilaa iyo 11 beri markaa dadka waxaan uga digaynaa haddii roobabku way soo tari doonaan haddii alla idmee in ay webiyada aad isaga ilaashaan oo la socdaan oo sidii ay hantidooda siiba iyo nafta iyo xoolahaba u badbaadsan lahaayeen inay ka baxaan meelaha godadka oo taariikhaan lagu yaqaanay inuu ku soo baxo oo ay tagaan meelaha taagga sidaasaanu dadka kula talin lahayn. kaasi wuxuu ahaa muuse shaaciye oo ah qabiir ka tirsan laanta beeraha iyo cunnada ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo uu rameeyey wariyaha BBC-da cabdinuur. waa hagaag saacadda istuudiyaha ee geeska afrikada bari ayaa waxay haatan tilmaamaysaa 5:00 galabnimo oo markaa aad nooga barateen inaan mar kale idiin dul marno qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. wariyaha BBC-da cabdiraxmaan xaaji caddow istuudiyaha magaalada nairobi aan ka codsado. mahadsanid saalimiin. dalka kuuba ayaa la sheegay inuu yeeshay madaxweyne cusub oo soo afjaray xukunkii 60 sano ay haysteen qoyska Castro. madaxweynahan cusub ayaa lagu magacaaba Miguel Díaz-Canel wuxuuna xilka madaxweynimo kala wareegay Raul Castro. boqoradda ingiriiska ayaa shirka ay yeesheen ururka barwaaqo-sooranka ee magaalada london uga furmay ka sheegtay in ay rajaynayso inuu wiilkeeda oo dhaxal sugaha Amir Wales uu xilka ama hogaaminimada ururkaasi uu qaban doono. dowladda ciraaq ayaa sheegtay in ay bilaabeen duqayn ay iska kaashanayaan dowladda ciraaq iyo suuriya oo ay ku beegsanayaan dableyda ururka isugu magacdaray dowladda islaamiga. afhayeen u hadlay ciidamada ciraaq ayaa sheegay in weerarkaasi uu noqon doono midkii lagu tirtiri lahaa hadhaaga kooxdaasi. telefishinka dowladda suuriya ayaa sheegtay boqolaal ka mid ah fallaagada ay ka dagaalamayso fallaagada ka dagaalanto bariga dimashq iyo qoysaskoodaba inay ka baxeen halkaas inay bilaabeen inay ka baxeen iyadoo la rajaynayo aldumeer dadka ka bixi doona guud ahaan tiradoodu 5,000 in ay gaari doonto. ugu dambayn xukuumadda Zimbabwe ayaa bilowday olole ay si degdeg ah oo markaasi qoranayso kalkaaliyaal caafimaad kadib markii ay toddobaadkan bilaabeen mudaharaadyo laguna eriyey 14,000 oo kalkaaliyaal caafimaad ah beddelkoodina ay qoranayso xirfadlayaal shaqalaan ahaa iyo kuwii howlgabka ahaa oo ay dib ugu yeeratay. qodobada warka ugu darroona idin dulman waa naga intaa. dib waxaan kugu celinayaa istuudiyaheenna magaalada London. mahadsanid cabdiraxmaan. dalka Senegal 3 xildhibaan oo MB ayaa la xiray. booliiskuna waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa magaalada caasimadda ee Dakar si ay uga hortagaan mudaharaadyada looga soo horjeedo, iyadoo taasina ay keentay mudaharaadyadaasi inay dhacaan in lagu dhaliilo sharciga muranka dhaliyay ee dowladda. Alex Duval Smith ayaa warbixintan soo diray. waxaa soo jeedinaya Bushra Nuur Maxamed. dibadbaxayaasha ayaa isugu yimid goob u dhow baarlamaanka. qaarkood waxay sheegayeen in ay doonayaan in xildhibaanada ay ka hor istaagaan inay ka qayb qaataan kulan codayn ah oo khilaaf badan dhaliyey. 3 ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa xabsiga loo taxaabay. kalfadhigii ayaa si nabadoon u furmay. xildhibaanada dhanna waa ay ka soo qayb galeen. sharcigan cusub ee doorashada ee la soo jeediyey ayaa kordhinaya tirada saxiixa uu u baahan yahay musharaxa madaxweynaha inta uu doorashada isu soo sharaxin. mucaaradka ayaa sheegay in sharcigan cusub uu yahay mid uu madaxweyne Macky Sall uu ku doonayo in uu ku xadido kuna yareeyo loolanka uu ku wajihi karo doorashada sanadka soo socda dalkaasi ka qabsoomaysa. dowladuna waxay ku andacoonaysaa inay doonayso in ay hormariso hanaanka doorashada. Bushra Nuur Maxamed aad bay mahadsan tahay warbixintaasi ay noo soo dirtay. dalka Mareykanka gobolka Kansas maxkamad ku taala ayaa 3 nin oo Amerikaana waxa ay ku heshay fal dambi argagixisa iyagoo qorsheynaya inay qarxiyaan masjid iyo guryo ay degan yihiin Soomaalida gobolkaasi ku nool. garsooraha maxkamadda federaalka ee gobolkaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dambigii lagu helay 3daasi nin markii ay garsoorayaasha dadweynuhu ee dacwadaasi go'aanka ka gaaraya ay 6 saac ka doodayeen ay go'aankooda ku dhawaaqeen. waxaana garsooruhu ay sheegtay in 3 nin oo cadaan ah oo xeer ilaalintu ay sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda maleeshiya ah oo koox maleeshiya ah ay mudan doonaan. halkaasaan ku celiyo waa 3daasi nin oo iyagu ah dad maleeshiya ayaa waxa ay sheegtay inay mudan doonaan ciqaab iyo xabsi 27 bisha Juun oo la xukumi doono. isla wararka Mareykanka haddii aanu dib ugu laabanno,
isla maraykanka weeyaane magaalada Minneapolis Soomaali badan oo ku nool halkaasi ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu dalacsiiyey Soomaali ka tirsan booliska Maraykanka oo ah Saajin Mukhtaar Cabdulqaadir oo ah wiilka dhalinyarada ah ee la dalacsiiyey. kadibna waxaa waraystay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen oo weydiiyey sida uu u dareemayo dalacsiintaasi. wala waxaan dareemayaa mataqaanaa guul dadka Soomaaliyeed dhammaantood magaaladan degan u soo hooyatay inay tahay maadaama ay dadka Soomaaliyeed aad loogu ciriiriyo mataqaanaa sarfishyada ay ka helaan dhinaca dawladaha sida dawladda booliiska oo kale marka waxay taa cadeynaysaa dadkeena guuxooda la maqlay oo la dhageystay laakiin waxaan leenahay wali hawsha fara kama qodna kaliya ma dad badan ayaa soo socda marka waxaan ka rajaynayaa community-ga in ay taageeraan askartooda maadaama askarta ayaanta lagu kacsan yahay oo dhibaato yarar iska jiraan. imisa askaraba imika Minnesota ama Minneapolis ka howlgasha oo Soomaaliya wallahi hada way badan yihiin waagi hore farahan ku tirin jiray laakiin way yara badan tahay 12 weeyaan laakiin magaalada aan ka shaqeeyo Minneapolis waxaa joogta ilaa hadda waxaynu nahay 6 ilaa 7 darajadan saajinka meeqa u gudubtay oo u dalacday sanadkii hore markuu ay bisha 12 ayaa la dalacaysiiyay laakiin maanta ayay noqotay maalintii xafladda loogu talagalay waxa weeyaan waa supervisory role oo leadership weeyaan oo mataqaanaa askarta ay ka hooseyso askarta officerka title-kooda aad command gareynaysid taa waxay keenaysaa marka fursad qaali ah oo aan dadkayga markaa iyo dadka magaalada degan dhammaantood dhinac kastaba ha imaama Soomaaliha ama yahan ugu adeego jagadan ma kaligaaba Soomaalida gaadhay mise waxa weeye uga gaadheen koox kalena laba nin oo iga horeysay oo dhalinyaro ah iga horeysay baa jira oo gaartay xerkan hadda ka hor laakiin maadaama anigu aan leeyahay dad badan oo support gareeya community-ga oo dad badan oo aad i xiiseeya danahayga maadaama aan hadda ka hor YouTube video aan sameeyay marka waxa cad inay dadku aad i support gareeyaan maanta ii soo baxeen marka aad ay u mahadsan yihiin dadkeena taas ayaan ka dadka Soomaaliya waa dad aad u fiican Soomaalidu waxa weeyaan askarta walba ka qabtaa ama walaaba ka qabtaa askarta Minneapolis bal maxaad oran lahayd Soomaalidu sidee ha u arka madan lahayd wallahi niyo hadda wadankan xogaa waxa lagu jira xilli kala guur ah oo mataqaanaa wadankiina uu isbedelay mataqaanaa leadershipka kore executive-ka magaalooyinka hoosana leadershipkooda uu isbedelay gobolka Minnesota waa gobol ka tirsan gobolada kontonka ah magaaladeenu magaalo ka tirsan marka waxaan ku fiicanahay magaaladeenu wax kasta oo soo mara ama qof kasta oo la doorto dadkeen mataqaanaa Soomaalida aad ay ugu badan yihiin waliba dad Soomaali oo leadership badan leh oo dhinac walba leh ama dhakhtar leh police leh engineer leh ayaa degan magaaladan oo mataqaanaa aad dadkooda ugu qabta dabcan siyaasi waynu leenahay oo hadda siyaasiyiin badan oo soo kordhay laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed wali dalacaynteedu waa meel waa wax yar marka loo fiiriyo dadka magaaladan degan ogow lacag badan ay Soomaalidu magaaladan kharash badan oo dhaqaale ay soo galiyaan marka ani keligay hadda iyo labada nin ugu horeysay kaliya ma waxaan u baahanahay dad badan geliyo meeshan agency-ga aan u shaqeeyo iyo agency-yada kale ee sirigu ay leedahay maadaama adeega dadkeenu aad u badan yahay dadkeenu dad productive oo aad dadka ugu fiican wadankan jooga ay yihiin dhalinyarada Soomaalida ee imika aan booliska Minnesota ama Minneapolis aan ka tirsanayn magaalada jooga ee maqlaya hadda maxaad oran lahayd haddii doonayaan askarta inay galaan maxay la yimaadaan oran lahayd waxaan oran lahaa horta mataqaanaa in aad horta howlkar ahaatid oo aad mataqaanaa shaqadan aan ka shaqeyno waa shaqo aad u yar dhib badan shaqooyin kale way ka dhib badan tahay maadaama dadka qof aad la shaqeyn karto oo san isku dhaqan inaan ahayn isku diin inaan ahayn haddana waxa weeyaan waa shaqo oo mataqaanaa lagaaga badan yahay marka inaad magacaaga marka hore dhistid oo adiga aad soo saartid oo mataqaanaa iska ilaalisid waxyaabaha yarar ee ku keeni kara shaqadan lagu diido sida mataqaanaa sharciga darawalnimada iyo sharciyada kale ee loogu baahan yahay inaad ku noqoto police certificate uga heshid state-ka laakiin dad badan dhalinyaro badan oo hadda aniga aan shaqada ku baraarujiyay way jiraan hadda waxaan siriga Edinburgh la yiraahdo wiilka ugu horeeyay ee Soomaaliya la qaatay oo ayar hadda Soomaaliya ay qaateen taana waxa keentay dadaalka aan ku dadaalnay in aan Soomaalida aan u shaqeyno bulshadeena gaar ahaan magaalooyinka ku dhow Minneapolis marka qofkii raba inuu police noqdo uu nala soo xiriiri karaa waan caawinayna sida loo caawiyo anigu ila soo xiriiri karaa step by step ku noqon lahaa laakiin xogaa cabsi yar ay iska jirta maadaama ay waxyaabo yar dhaceen laakiin wax walba way iska baas gareynayaan insha Allah kaasi waxa uu ahaa Saajin Mukhtaar Cabdulqaadir oo ka tirsan booliska Maraykanka oo u waramayay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen gordha waxay noo soo socda war ku saabsan gobolka waqooyi bari ee Kenya balse haatan Suuriya telefishinka qaranka ee Suuriya ayaa waxa uu sheegay in wareegii ugu horeeyay 5,000 oo mucaarada iyo qaraabadooduba ay bilaabeen inay ka tagaan goobtii ay ka joogeen bariga magaalada Dimashq kadib heshiis ay la gaareen dowladda
maleeshiyadaasi ka tirsan kooxda jeyshul islaam ayaa waxay ogolaadeen inay hubkooda dhigaan oo ay ka tagaan magaaladaasi. wariyaha b b c da alan johnston ayaa ka warramaya. waxaa soo jeedinaya faarax lamaane. qayb yar oo ah dhul lagu hareeraysan yahay oo u dhow aldumayr ayaa ku jira gacanta kooxda fallaagada ah ee la yidhaahdo jeyshal islaam, laakiinse waxay u muuqataa in dagaalamayaashu ay ku heshiiyeen inay dib u gurtaan oo ay u wareegaan deegaanka ay mucaaradku maamulaan ee waqooyiga suuriya. haddii ay go'aansadaan inay sii joogaan oo dagaalamaan, waxaa dhici karta in laga awood badiyo oo uu qabsado dagaal aad u xoog badan oo waxyeello ba'an ay ka soo gaarto dadka rayidka ah. tani waa tallaabadii u dambaysay heshiisyo isxigxigay oo daba dheeraaday oo xoogagga fallaagada cadaadis lagu saaray in goobaha ay haystaan ay ku wareejiyaan gacanta xukuumadda. faarax lamaane aad buu mahadsan yahay. cabsi dhanka amniga ah oo ka taagan waqooyi bari kenya ayaa waxay halis ku noqotay waxbarashada gobolkaasi kadib markii macallimiin iskuullada gobolka wax ka dhigayay oo ka soo jeeda qaybaha kale ee kenya ay dalbadeen inay gobolkaasi laga beddelo. arrintan ayaa salka ku haysa dilka 3 macallin oo bishii febraayo lagu dilay deegaanka wajeer, waxaana dilkaasi lagu eedeeyey xarakada al-shabaab. macallimiinta doonaya inay gobolkaasi laga beddelo ayaa waxa ay ku doodayaan in 3daasi macallin loo dilay sababo la xiriira diintooda, balse arrintan ayaa 3dii sane ee lasoo dhaafay waxa ay ka taagneed gobolkaasi. wariyaha b b c da ciise xaaji cabdulle oo dhowaan safar shaqo ku tegay magaalada wajeer ayaa u kuurgalay sida cabsidan dhanka ammaanka ah ay saameyn ugu yeelatay waxbarashada. warbixintan ayuuna ka diyaariyey. ardayda fasalka 3aad ee dugsiga sare ee wajeer ayaa u fadhiisanaya imtixaanka bartamaha sanad dugsiyeedkan. muddadaasoo dhanna wax la sheegi kara ma aanay dhigan. iskuulka waxaa ka maqan 16 macallin oo 8 ka mid ahi markii saaxiibadood lagu dilay meelaan dugsiga ka fogeen iyaguna baxsaday. ardaydu iyaga ayaa wax isbaraya, waana arrin uu aad ugu murugoonaya xaaladda jirta. maxamed shuguri oo isku diyaaranaya inuu u fadhiisto imtixaanka lagu galo jaamacadda dabayaaqada sanadkan. iskuullo badan oo halkani ku yaalla ayay ku adag tahay inay buuxiyaan shaqada macallimiinta ka maqan. macallimiinta joogta waxay shaqeeyaan 2 gelin, dugsiyada qaarkoodna waxayba soo qortaan shaqaale aan ragli ahayn. laakiin sidaasoo ay tahayna haddana xiisadaha ardayda u baahan yihiin way badan yihiin oo macallin la'aantu saameyn weyn ayay ku yeelatay ardayda. macallinkaadii oo adiga wax ku baraya markuu kaa tago waddanka inay ka mid ahayn ayay tusiyey. imtixaankanayta oo la qaadan oo KCSE ah Kenya dhan hal imtixaan ay isla qaadanayaan. ardayda maanta wajeer ku nool waxay rabaan imtixaankaas inay ka qayb galaan oo ma noqonaysa fair ilmihii oo maanta Kenyada hoos ku noolay iyo ardayda wajeer Northeastern ku nool in ay hal imtixaan isla qaataan ayagoona said maanta wax weyn oo inay macallimiinta aan soomaalida ahayn ka dareeraan gobolkani waxay bilaabantay sanadkii 2015 oo 140 arday lagu dilay jaamacadda gaarisa. dhacdadaas oo dadka aan muslimka ahayn ka dhigtay inaanay ku nabadgelayn waqooyiga kenya. sannadihii lasoo dhaafay oo dhanna dib ayay ugu noqonayeen macallimiintu deegaanadii ay ka yimaadeen. hase aatee dilkii 3 macallin oo wax ka dhigaya iskuul ku yaalla xadka soomaaliya ayaa walaac xor leh sii abuuray. dugsiga sare ee gabdhaha wajeer waxaa ugu dambeeyey oo ka tagay 7 macallin. magaaladuna waxay la circiiraysaa arday hablo u badan oo u baahan in wax la baro. hase aatee maamulka iskuulka ayaana arrintan ka walacsan. hamarow silvano waa maamulaha iskoolka sare ee gabdhaha wajeer. waxay ii sheegtay inay jirto suurtagalnimo ay waalidiinta iskuulka uga saari karaan gabdhaha si loo guursado. gobolkan waxaan la tacaalaynaa arrimo ay ka mid yihiin guurka degdega ah. marka marba haddii ay waalidku og yihiin inaysan jirin wax macallimiin ah iskoolkii jooga, maxaa xiga oo dhacaya? waxaa xiga ee ay samaynayaan ayaa ah in gabdhahooda ay u guuriyaan. waxaana maamul ahaan ka walwalsannahay in marka ay wax walba caadi noqdaan in ay iskoolka ku soo xaadiri waayaan ardaydii oo dhan. tan iyo bishii 2aad ee sanadkan guddida macallimiinta kenya ayaa 50 macallin iyo dheeraad ka aqbalay codsiyadoodii ahaa in meelo kale loo bedelo. arrintaasina waxay dhalisay mudaharaadyo ay dhigaan shacabka iyo hogaamiyaasha gobolku. laakiin guddiga dhegjalaq uma siinin baaqyada ah inuu joojiyo beddelka macallimiinta, waxaanu gar ay go'aankoodu ku difaacayaan ka hor aqristeen guddi baarlamaan oo arrintani loo saaray. waan ka kaxaynay macallimiintii oo dhan wajeer. sidan camal ayaanu ku samaynay goobaha
waxyaabaha kale ee macallimiinteenna ay dhibaatooyinka ku wajahaan balse markay khatartu dhammaato ayaan u keenaynaa macallimiin wax barta waxay la tahay maamul ahaan inaan fahno macallimiinteenna waayo waxay ku doodayaan inaanan fahmin marmarka qaar mar walbana aan ka codsanno inay si fiican u shaqeeyaan balse markuu dhib haysto aan ka sii jeedsanno dadka deegaanka wajeer waxay sheegayaan inay soo dhoweynayaan qof walba oo kenyaana oo doonaya inuu wax baro carruurtooda balse inta ay jirto khatarta al-shabaab iyo in dadka lagu kala qaybiyo qowmiyadahay ka dhasheen iyo diinta ay haystaan waxaa adkaanayso in dadka aan ka soo jeedin gobolka ay ku kalsoonaadaan ka shaqaynta gobolka waqooyi bari gaar ahaan deegaanka wajeer ciise xaaji cabdille b b c magaalada wajeer ee waqooyi bari kenya haddaba wariyaha b b c da ciise xaaji ayaa maanta waxa uu waraystay ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka wajeer axmed cali mukhtaar oo uga warramay dadaalka ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinkaasi jira. hadda wajeer waqtiyadii la xiri jiray iskuullada ka hore ayaa iskuulladoodii dhammaan la xiray waxaana qasbay dilkii ay geysteen wiilashan yaryarka ee shabaab oo la dilay 2 macallin oo joogay qarsa taas waxay sababtay marka macallimiintii aanan u dhalanin ama aan ka soo jeedin gobolka dhammaantooda inay baxaan waxay qasabtay marka iskuulladii in la wada xiro qayb badan baan ka qaadanaynaa leena countiga lacagaha ay hayso qayb badan oo loogu talagalay waxaa jirta basari in fiiska looga bixiyo ardayda liito laakiin annaga hadda si oo deliberate ay waxaan samayn rabnaa koosas qaar oo khaas ah sida macallinimada inaan xooga saarno waad maqashay maalin hore nafteeda wasiiradii iyo madaxda dhammaan northeastern ayaa isugu imaadeen shir waxyaaba laga hadlayana waxaan oo kale ahayn iyo sida looga bixi lahaa marka dadkii ardaydii iskuullada iska bogeen ayagoonan macallin haysanin silibaskii iyo waxyaabihii loogu talagalay sanadka inay bartaan aan bogin imtixaan laga qaado imtixaanku way ka dhacayaan laazim marka pointska ay hadaan badana way ka hooseyso kuwa kale sidaa daraaddeed waxaan ka codsanay wasiiradda oonay naga aqbashay entry pointka ama waxa lagu galo darajada lagu galo kolejyada badana waxa waaye seaplane in laga dhigo northeastern affirmative action ahaan D+. maxaad ugu baaqaysaa dadka reer wajeer oo hadda ay saameyn weyn la taalo oo ku saabsan arrintan waxbarashada ah reer wajeer iyo dhammaan gobolka waqooyi bari dadka ku nool waxaan ugu baaqi lahaa in horta marka koowaad ardayda waxaa baranayso lagu booriyo inay waxbarasho aadaan si gobolkii uu noqdo gobol asagoo macallimiin markay noqoto wax barasho oo college iskuuladii barayaan secondaryadii ama primaryadii inay qani ka noqdaan oo ayaga ay isku filnaadaan lalana shaqeeyo dowladda countiga iyo nationalka dhammaan ma isleedahay guddiga shaqaaleysiinta macallimiinta TSC in ay ka badbadiyaan arrintan ku saabsan macallimiinta gobolka laga wada qaadayo amni dara awgeed iyadoo aan ognahay in dad kale xirfadooyin kala haysto sida dhaqaatiirta iyo askarta iyo dadka guryaha dhiso kudii ay gobolka ay joogaan ay ka shaqaysanayaan laakiin satan macallimiinta laga badbado aad iyo aad TSC aad iyo aad ay uga badisay waan ognahay in macallimiinta la dilay annaga nafteena waa ka laxawsanaynaa sababtoo ay tahay macallimiinta macallinka waa waalid oo kale macallin in la dilana ma haboono nin ku faraxsanna ma laha dhibkan inay keenayna nin walba uu filahay laakiin macallimiin waxaan aragnay diyaar aan u ahayn in la transfer gareeyo ama meel kale la geeyo oo TSC ay aad moodo in si qasab ah aanay ku transfer gareysa macallin baa jooga tuulo transfer baa isaga imaaday asagoo aanan codsanin macallimiintuna way ku faraxsan yihiin xabado yar way jireen mar mediaga tagay oo dhahay si xun baa nolol dhaqmaa laakiin wixii radiyay markiiba wuxuu ahaa macallimiinta naftooda ayaga la midka ahaa ee meelaha kala joogay waxaa intaa ku dheer adigana aad ku sheegtay su-aashaada dhakhtarintii baa joogo dad becsharale iyo business sameeyo ayaa joogo wajeer iyo magaalooyinka dhammaan boodha dad waxaa jira intii magaalada laga qaado tuulooyin lala aado ama magaalada ka baxeeda cabsina aan qabin aanan kasoo soconin wadankii ma ahe halkaa degan ee ku ilmo dhalay marka macallimiin wax khaas ah oo gooni ah ma jiro waan ogsoonnahay wixii la dilay macallimiin baa ahaan laakiin maaha macallimiinta oo dhan in la wada line rabo dadkan kalena aan la taabanayn sidaa daraaddeeda TSC aad iyo aad ay uga badisay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka wajeer axmed cali mukhtaar oo u warramayay wariyaha BBC da ciise xaaji
muuqaal kooban oo baraha bulshada lagu faafiyey oo muujinayay gabar la garaacayo ayaa dalka Gaana waxa uu ka noqday hadalhaynta ugu weyn ee ka jirta dalkaasi. muuqaalka ayaa waxaa laga arkay gabar la sheegay inay ka soo dib dhacday xilligii loogu talagalay inay guriga timaado oo lagu garbaashayo shaabuugga fardaha. wasiirka jinsiga iyo ilaalinta arrimaha bulshada ee Gaana Otiko Afisa Dijaba ayaa ugu baaqay booliska inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ficilkaasi sameeyey. sida warbixintan ku eegayo wariyaha BBC-da Thomas Nadi waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo soo jeediya. muuqaalka laga soo duubay shiishaagu oo ku taalla waqooyiga Gaana ayaa wuxuu muujinayaa laba dhalinyaro da'yar oo wiilal ah oo isticmaalayo shaabuugga faraska si ay uga karbaashaan gabar dhalinyaro ah, halka ay laba kalena ay ku dulhayaan kursi loox ka samaysan. dad badan oo daawanaya ayaa waxay u eg yihiin kuwa ku sii boorinaya in la garaaco gabadha. gabadhuna way qaylinaysaa iyadoo aan wax miciina haysanin. aabbaha gabadha dhalay ayaa dhallinyarada weydiistay inay u ciqaabaan maadaama ay guriga xilliga ay imanaysay ka soo dibdhacday, sida ku cad warmurtiyeed ay soo saartay wasaaradda jinsiga iyo ilaalinta arrimaha bulshada ee dalka Gaana. wasaaraddu waxay dhacdadaasi la noqotay mid aad looga naxo, waxayna ugu yeedheen booliis si uu arrinta u baadho, kadibna dembi baadhaha uu ugu soo gudbiyo sharciga. agaasimaha guud ee hay-adda xuquuqda carruurta Bright Apia ayaa sida oo kale cambaareeyey islamarkaana dowladda ugu baaqay in ay tallaabooyin hor leh u qaado sidii ay xuquuqda carruurta dalka ay u ilaalin lahayd. baaritaankan waxaa ka baxsan in qoyska oo dhan la ogaado waxa ku qasbay in tallaabadan ay qaadaan. marka arrintan waxay horseedaysaa in wax laga bedelo qaabka ugu wanaagsan ee loo daryeeli karo carruurteena. dalka Gaana ayaa wuxuu leeyahay shuruuc adag oo mamnuucaya xadgudubka jinsiga. hase ahaatee falalka xadgudubyada ayaa weli waxay dalka ka yihiin kuwa sidooda uga jira. BBC-na weli si madax bannaan uma xaqiijin cidda muuqaalkani sii daysay. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. iyadoo shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaan oo muddo sanad ah waqtigeeda laga soo hormariyay, ayaa waxaa la isweydiinayaa waxa go'aankaasi ku dhaliyey. madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu shaaciyay in doorashooyinkaasi ay dhici doonaan 24 Juun si loo helo hogaamiye awood buuxa leh. haddaba maxay tahay ujeeddada dhabta ah ee Erdogan uu doorashadaasi muddadeeda uga soo hormariyey? su-aashaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Mustafa Maxamed Cali Caadle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda islamarkaasina shahaadada PhD ka diyaariya jaamacadda Ankara Yildirim Beyazid ee ku taalla caasimadda Ankara ee dalka Turkiga. kulley laba fasiraad jirto. marka hore midda ah hadalka madaxweynaha oo ah in wadanka uu ku jiro xaalado adag dhanka dhaqaalaha iyo dhanka howlgallada ay ka wadaan Suuriya, saas daraaddeedna loo baahan yahay in la qaato go'aano adag. go'aanadaas adag si loo qaatana loo baahan yahay in nidaamka cusub ee loogu talagalay ee madaxtooyada ah ee Turkiga ka dhaqangelaya in la dhaqangeliyo kadibna go'aanadaas la qaato in loo baahan yahay uu sheegay. fasiraadaas marka waa dhankaas. fasiraad kale oo xisbiga soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga MHP ee dawlad Bahjeli iyo xisbigan kale uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan ba ay ayagana dana gaar ah ay meeshaas ka dhex arkeen. danahan ay meesha ka arkeen aad sheegayso maxay noqon karaan? markii aan fiirino xisbigan hadda soo jeediyo kale, ayaga waxaa jiro in xisbi kale laga dhex sameeyey oo qayb xisbigaas ka mid ah xisbiga ka goosteen oo xisbi cusub oo e-party la dhahay ay samaysteen. xisbigaas hadda haddii doorashada hadda la galo kale waxa waaye way ku adkaan doontaa, sababtoo ah sharciga doorashooyinka Turkiga qodobkiisa 36 wuxuu dhigayaa in xisbiga si uu uga qayb galo doorashada looga baahan yahay in doorashada 6 bil ka hor uu
ugu yaraan magaalooyinka turkiga haaf uu xafiisyo ku leeyahay. marka maadaama sanadka ugu horreeyay iyo bilihii ugu horreeyay oo ku jiro xisbigaas oo kale waxaa ku adkaanaysa inuu doorashada ka qayb galo. taas waa qodobka labaad waxaa waaye oo labada xisbi si wadajir ah meeshaas ay faa'iido uga dhex arki karaan iyadana waxay tahay in xisbiga hadda afraad oo kale baarlamaanka ku jiro oo HDP la yiraahdo ama xisbiga ay kurdida leeyihiin madaxdiisa iyo xildhibaanadiisa qaar badan ay dacwooyin ku furan yihiin. saas daraadeedna ay ku adkaan doonto in xisbigaas uu baarlamaanka soo galo maadaama xisbiga baarlamaanka soo galaya looga baahan yahay inuu helo 10% codadka guud ee doorashada. marka fursaday labadooda u noqon kartaa maadaama ay jiri doonaan yani 3 xisbi markaas inay gashay noqon doontaa baarlamaanka oo kale ah xisbiga hadda talada hayo AKP iyo xisbiga labaad oo CHP aan dhaho iyo xisbiga kale oo saddexaad oo MHP. marka labadooda maadaama ay taxaaluf yihiin hadda waxay taasi ay keeni doontaa in ayaga numberka ugu weyn ay baarlamaanka kula hadaan. madaxweynuhu waxa uu sheegay in caqabado jira awgood iyo sidoo kale arrinta Suuriya loo baahan yahay in la soo dedejiyo doorashada. marka maxaa iska qusay arrimahaasi iyo doorashada? madaxweynaha fasiraadiisa markii la fiiriyo madaxweynaha wuxuu leeyahay Turkiga wuxuu go'aansaday inuu u gudbo nidaamka madaxtooyada ah. marka saas daraadeed waxaa loo baahan yahay leeyahay go'aanada la qaadanayo taariikhiga ahna in maadaama nidaam cusub aan qaadanay waxa loo baahan yahay in lagu hoos qaato nidaamkaas in lagu hoos qaato. saas daraadeed wuxuu leeyahay waxaan u baahannahay waqtiga aan ku jirna awgiis waxaa munaasab noqotay in nidaamkaas loo gudbo go'aanadana la qaato. asiga fasiraadiisa sidaas u dhigay. awoodda uu u baahan yahay ee haatan uusan lahayn maxay tahay? hadda madaxweynaha awood male. awoodda waxaa iska lahaa golaha wasiirada. isagana maanta uu sheegay in golaha wasiirada iyo siday u shaqeeyaan iyo ra'iisul wasaaraha uu ku qanacsan yahay. laakiin loo baahan yahay maadaama Turkiga guud ahaan la isla qaatay sanad ka hor in nidaamka madaxweynaha la qaato wuxuu isaga marka ku qanacsan yahay uu leeyahay waxaan u baahannahay go'aamada aan qaadanayno taariikhda galayana in marba haddii aan doorano yani inaan nidaamkaas qaadano waxaan u baahannahay inaan ku dhaqsano. dad ayaa waxay leeyihiin doorashadan waxaa loogu talagalay marka hore inay dhacdo 2019 Erdogan hadda wuu soo dedejiyey. marka suurtagal waxa ah inuu isleeyahay ama madaxweynuhu ka baqayo in muddada sanadka ee ka dhiman doorashada in shacbiyadiisu ay sii lumi karto. marka uu isleeyahay hadda ka faa'iideysa. aniga ilama ahan in shacbiyadiisa inay saameyn badan ku yeelanayso uma maleynayay. laakiin waxaa laga yaabaa in diyaar garowga xisbiyada kale ay saameyn ku leedahay. mar haddii dadka la tartamayo aysan diyaarsanayn fursad halkaas way ka jiri kartaa. haddii doorashadaasi maantaba la qabto tusaale ahaan ka waran fursadaha madaxweyne Erdogan inuu ku guuleysan karo? markii aan fiirino hadda aftidii la qabtay markii ugu dambeysay oo dastuurka wax looga bedelayo kale magaalooyinka ugu waaweyn Ankara, Istanbul iyo Izmir oo kale jawaab maya ahay bixiyeen yani oo inay kasoo horjeedaan arrintaas ahayd. marka xoogaa aftidaas inay saameyn ku yeelatay markii aan fiirino axsaabta kale iyo musharaxiintooda oo kulli ay sheegeen in xisbi walba uu tartami doono ilaa 5 xisbi. waxaa suuragal ah in xisbiyadaas haddii ay tartamaan madaxweyne Erdogan ay ku adkaato in wareega koowaad uu helo 50% wax ka badan taasoo ka dhigi karta yani inay ku adkaato inuu wareega koowaad ku guuleysto loona baahan doono in wareeg labaad la aado 15 maalin gudahood. waxaa kaloo iyadana jirta marka hubnaan la'aan ah in haddii haddana wareega labaad la aado in xisbiyada kale haddana madaxweyne Erdogan ay u midoobaan oo meeshaasna ay xoogaa cadaadis ka saaraan iyadana khatar kale oo isaga ka dhan ahaa meeshaas ku jirto. laakiin fursad kaloo waxaa u bannaan haddii ay ku guuleystaan in 5 meelood 3 meel yani kuraasta baarlamaanka oo 600 oo xildhibaan hadda guud ahaan ay ka noqon doonaan haddii ay helaan 360 kursi haddii ay ka helaan labada xisbi hadhow waxay awoodi karaan in xataa haddii madaxweyne kale uu ka guuleysto inay codsadaan in doorasho kale la aado. kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Caadle oo u waramayay wariyaha BBC-da Xasan Cali Gelle. bal markana haddii aanu ciyaarihii eegno ciyaaraha Ingiriiska gaar ahaan horyaalka Premier League koobkii isaga mar hore lala tegay oo Manchester City ayaa qaadatay balse ciyaaraha ayaan weli dhammaan oo sii socda. caawa ciyaaro xiisa leh ayaa dhacaya saacadda marka ay tahay 8:15 waqtiga Ingiriiska waxaana wada ciyaari doona markaasi Burnley iyo Chelsea iyo Leicester iyo Southampton. haddii aan ku hormarno Burnley iyo waliba Chelsea waxa ay markaasi wada ciyaari doonaan ciyaar ka mid ah ciyaaraha Premier League iyadoo tababaraha Burnley uu sheegay markaasi in uu adkaynayo kooxdiisa oo isla kooxda ciyaartooygii horay uga adkaaday Leicester ay markaasi uu soo safi doono. dhinaca kalena waxa uu sheegay tababaraha Burnley ayaa waxa uu sheegay in taageerayaashiisu ay bilaabayaan inay ka fikiraan marka bal in kooxdu ay ka mid noqoto ciyaaraha Europa League ee sanadka soo socda waayo kooxdaasi waxay haysataa 43 waa 52 dhibcood ay haysataa markaasi haddii ay Arsenal ay dhaaftana waxaa laga yaabaa in ay sidaasi ku noqoto inay iyadu u soo gudubto.
isla kale ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid a Leicester iyo Southampton ayaa wada ciyaari doona. Leicester waxa ay ku jirtaa meel dhexe oo iyadoo kama cabsi qabto inay dhinaca kooxaha bottomka ama relegationka ama hoos u dhacaya ee sanadkan ka haray horyaalka inay ka mid noqoto. hase yeeshee Southampton ayaa waxay ka mid tahay kooxahaasi saddexda ee hoos ku jira tan ugu sarreysa, waxaana isku dayeysaa sidii ay uga soo bixi lahayd. dhinaca kala horeynta horyaalkaasi haddaanu fiirino, Man City ayaa ugu horeysa oo iyadu koobkaba la tagtay 87 dhibcood ay leedahay, weliba 5 ciyaar ayaa usii harsan. waxaana kusoo xigo Man United, waxaana kusoo xigta Liverpool, Tottenham ayaa kusoo xigta. afartaas kooxood ayaa ugu sarreysa. Chelsea ayaa kaalinta shanaad ku jirta oo 60 dhibcood haysata, halka Arsenalna ay haysato 54. guud ahaan barnaamijkeennii dunida iyo maanta uu isku soo dawiraday Cabdinuur, anna aan soo jeedinayo Saalamiina. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.